iyada oo aynu ku guda jirno bishii 12aad oo kamid ah bilaha ugu qabowga badan sanadka ayaa waxa toddobaadkii u soo dambeeyay degmooyinka gobolka Gabiley waxa ka dhacday dhaxan aad u qabow taasi oo saameyn adag ku yeelatay dadka saboolka ah ee aan lahayn guryo adag oo ay dhaxanta ka dugsadaan isla markaana qalab buulo yar oo ay bac ku hagoogeen haddaba iyada oo ay taasi jirto ayaa laga deerinayaa dhaxanta iyo qabowga ka jira magaalooyinka Gabiley iyo Wajaale oo saameeyay dadka danyarta ah arrintani ayaa wax baaqay dhana u diray bulshada reer Somaliland qaar ka mid ah waxgaradka gobolka iyo dadweynaha reer Gabiley oo ku baaqay in dadkani saboolka ah la soo gaarsiiyo oo ay dhaxanta ka wadaan dabayshaasi oo dhaxan wadato hoosmar la yiraahdo hoosmaray wadatay waaga ugu bariyay imka oo ay tahay saacadu 9kii oo waxla tiiba wali socota dadkii danyartii ee aan haysan guryo ay galaan يعني نلول حن بيكجران وحو قبتي وباهي يا معاوير والله ما ولي ما يسوى مرينا أنا قتل ما نعرف قبيل يقبل وصعدا أو ضد خدمة فردية هلا عاد بالوقت دايرين يا ضد كويا بين هاي لحنتها قرمد وين بوباهيين لحنتها دي شيء وين ما حالي مالين أدق بهن مالين أدق بهن لحنتها وين فأنت هاي كاسبول كنا ونقدرين ياي لو بهن ياي بستيالين نصيه أو لقى عن قبته أو وحلصيه sidoo kalena gudoomiyaha degmada Tog Wajaale Xaashim Maxamuud Cabdi oo aan wax ka weydiinay ayaa waxa uu ku jawaabay madina dayarta ee dhaxantu hayso walid ku eegay qof kasta oo hanti hayo waa lagu taxamay ka faqiirka faqirnimada lagu taxamay ka taajirnimada lagu taxamay ka faqiirka faqirnimada lagu taxamayo inuu waxa ilaahay kulliga inuu adkaysan karayo inuu adkaysan karo bal lagu taxamay ka tijaarka hantida la siiyay bal inuu wax ka bixiyo ayaa lagu taxamay itixaam baad ku jirtiin hadda tijaartiina umadiina u gargaaran oo wax siiyay oran waa Cabdirashiid Salebaan Muuse Cabdirashiid Baalgoray SBC TV gobolka Gabiley